kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Faafi TV kusoo dhawaada warka Faafi TV qodobada aad daawan doontaan waxa kamid ah koox Hubeeysan oo nabadoon ku dishay Muqdishu iyo faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxay dilka nabadoonka dowladda Turkiga oo gaadiid cusub ku wareejisay dowladda Federaalka Soomaaliya howlgal ka dhan al-shabaab looga dhawaaqay gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe wararka ka baxsan Soomaalida oo aad daawan doontaan waxa kamid ah dad badan oo laga soo badbaadiyay dhismo ku dumay dalka India daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warka Faafi TV imikiyaatan waxaad ku soo dhawaataan iyaga oo inta ka faahfaahsan koox Hubeeysan ayaa nabadoon ku dishay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyadoo faahfaahin dheeraad ah ay ka soo baxayaan dilka loo geystay nabadoonka wararka naga soo gaaray degmada wadajir ee gobolka Banaadir gaar ahaan xaafadda Siiyay Ameerikaanka ayaa waxay sheegayaan in koox Hubeeysan halkaas ay ku dishay nabadoon si weyn looga yaqaanay deegaanka nabadoonka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Sheekh Cali Maxamed Cismaan goobjoogayaal halka ku sugan ayaa inoo xaqiijiyay in xilliga nabadoonka la dilay uu ku sugnaa xarun uu halkaas ku lahaa kooxii dilka geystay ayaa goobta iskaga baxsaday waxaana halkaas gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee dowladda Soomaaliya iyadoo baaritaano kala duwan ay halkaas ka sameeyeen inkastoo ilaa ay hadda aysan jirin cid loo soo qabtay baaritaanada ay sameeyeen ciidanka dowladda Soomaaliya kuna aadan dilka nabadoonka oo la xiriirinayo ama in ay ka dambeeyeen sidaan oo kale hore ayaa tiro nabadoonnaa waxa loogu dilay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka degmooyinka ay ka kooban tahay waxaana ciidanka dowladda Soomaaliya iyo laamaha amnigaba ay ku howlanayeen sidii loo soo qaban lahaa dadkii ka dambeeyay dilkaas inkastoo dilalkaas dadkii ka dambeeyay aan lagu guuleysan in gacanta lagu soo dhigo balse laamaha amniga dowladda Soomaaliya ayaa xilligan waxay ku howlan yihiin baaritaano dheeraad ah oo ay ku sameynayaan meesha dilku uu ka dhacay iyo sidii loo soo qaban lahaa dadkii ka dambeeyay dilka nabadoonka caanka ka ahaa degmada wadajir ee gobolka Banaadir gaar ahaan xaafadda Siiyay oo kooxdii dishay isla markiiba ay goobta ka baxsadeen dowladda Turkiga ayaa gaadiid cusub ku wareejisay dowladda Federaalka Soomaaliya wasaaradda gaashaandhigga dowladda Turkiga ayaa gaadiid ku wareejisay dowladda Soomaaliya kuwaas oo loogu talagalay inay si gaar ah u adeegsan doonaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Turkiga ayaa waxa lagu sheegay inay 12 gaari ku wareejiyeen Soomaaliya isla markaana gaadiidkaas loogu talagalay in loo isticmaalo safarada dhulka ee aadka u adag xilliyada ciidanka xoogga dalka ay sameynayaan howlgallada ka dhanka shabaab gaadiidkan lagu wareejiyay dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu qayb ka yahay heshiis military iyo iskaashi dhaqaale oo labada dal ay hore u kala saxiixdeen waxaana la wareegay gaadiidkaas taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gawaaridan oo gaaray 12 waxa loogu talagalay in loo isticmaalo dhulka adag xilliyada howlgalladu ay socdaan waxaana loo qorsheeyay guutada saddexaad ee ciidanka dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa militariga kuwaas oo lagu magacaabo gorgor waxayna ku sugan yihiin qaybo badan oo ka tirsan gobolada dalka howlgallo ayayna ka wadaan sida lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya dowladda Turkiga ayaa horey dowladda Federaalka Soomaaliya ugu wareejisay gaadiid kala duwan waxaana labada dowladood u dhaxeeyay heshiisyo iskaashi oo ku saleysan dhinacyo badan dowladda Turkiga ayaana sidaan oo kale dowladda Soomaaliya hore waxay kaga taageertay dhinacyo badan oo militariga iyo dhaqaalaha uu qayb ka yahay waana saaxiibka koowaad ee dowladda Soomaaliya ay leedahay dowladda wadanka Turkiga ciidamo badan oo ka tirsan militariga dowladda Soomaaliya ayaan lagu soo tababaray wadanka Turkiga halka kuwa kana lagu tababaray xarunta Turkisom ee ku taala magaalada Muqdisho halkaas oo ay maamulaan saraakiil Turki ah muddana halkaas ay ku sugnaayeen tababarana ay u soo gabagabeeyeen ciidamo badan oo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya taliska kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee danab ayaa faahfaahin ka bixiyay ciidamadii kumaandoosta ahaa ee maalin ka hor gaaray magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle taliyaha guutada 16aad ee kumaandoosta xoogga dalka gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik oo la hadlayay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in ciidankii danab ee saldhigyada ka sameystay magaalada Jowhar ayna ugu talagaleen in loogu dardargeliyo howlgallada looga xoreynayo al-shabaab gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan maadaama deegaano badan oo ka tirsan Hirshabeelle ay al-shabaab ka xoogan yihiin ciidanka kumaandoosta waxay xarumo ku leeyihiin Jubbaland Koonfur Galbeed Galmudug haddana Hirshabeelle ayay ka sameeysan doonaan dhawaantan waxaana dalka oo dhan ay ka xoreyn doonaan al-shabaab oo dhibaato weyn ku haya shacabka Soomaaliyeed ayuu yiri taliye Cabdimaalik taliyaha ayaa xusay in ciidanka danab ay howlgallo ka fuliyeen inta u dhaxaysa Jowhar iyo Muqdisho halkaas oo dhibaato ay ku qabeen shacabka isticmaala gaadiidka soo gaara Muqdisho iyo kuwa ka baxa taliyaha ayaa waxa uu xusay in ciidanka danab ay howlgallo ka fuliyeen inta u dhaxaysa magaalooyinka Jowhar iyo Muqdisho halkaas oo dhibaato ay ku qabaan shacabka iyo gaadiidka labada dhinac isaga kala goosha waxaana uu intaasi ku daray inay ciidanka halkaasi ku dileen xubno ka tirsan al-shabaab guud ahaan ciidanka xoogga dalka ee ku sugan gobolada dalka ayaa waxa ay wadaan howlgallo ka dhan ah al-shabaab kuwaas oo haatan ciidanku ay ka saareen deegaano badan oo ka tirsan gobolada dalka oo idil daawadayaal wali waxaad daawanaysaan oo la socotaan wararka Faafi TV markaana akhbaraadka dibadda dad badan ayaa laga soo badbaadiyay dhismo ku dumay dalka India shaqaalaha waaxda badbaadinta ee dalka Hindiya ayaa ku guuleystay in nolosha ay ku soo badbaadiyaan 10 ruux oo ku dumay dhismo ku yaala dalka India dadkan la soo badbaadiyay
oo ka badnaa 60 ruux ayaa ku sugnaa dhismo ku yaala meel u dhow magaalada loo yaqaano caasimada dhaqaalaha ee Mumbai. Dhismahan oo ay ku sugnaayeen ilaa 200 oo ruux ayaa wali waxa socdo dadaalo aad u badan kuwaas oo lagu baadigoobayo dadka kale ee wali ku harsan dhismaha sida ay shaaca ka qaaday wakaalada wararka ee Reuters. ilaa iyo hadda waxa socdo gurmadka wali lagu badbaadinayo laguna samata bixinayo dadkaas uu ku soo dumay dhismaha baaxadda lahaa ee ku yaalay magaalada Mumbai ee dalka India. sidaan oo kale tiro dhowr jeer ah ayay dhaceen in dhismayaal ku yaala waddanka India ay soo dumaan dhismayaashaas oo ay degnaayeen dad shacab ah ayna ku waxyeeloobeen xilliyada ay soo dumayeen waxaana dhismayaashii hore soo dumay qayb ka ahaa goobo ganacsi oo u badnaa suuqyo kuwaas oo qadiimi ahaa. dowladda India ayaana dhowr jeer dadkeeda uga digtay inay ku sii sugnaadaan dhismayaasha ku yaala waddanka India kuwaas oo ah dhismayaal qadiimi ah una baahan in dib u dayactir lagu sameeyo waxaana dhismaha xilligan dume uu qayb ka noqonaya dhismayaasha duqoobay ee ku yaala waddanka India. daawadayaal intaas waxa ku dhan warka Faafi TV haddii ay taa markii kuugu horreysay aad soo booqatay channelkan hanaga ilaawin inaad tiraahdo subscribe kadibna furatid calaamadda gambaleelka si ay kuu soo garaan wax walba oo cusub oo aan channelkan soo gelino waadna ku maasantahay la socodka iyo daawashada wararkeena.